السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا maanta wuxuu ku saabsan yahay sideeda janaal ay ugu wanaagsan YouTuberiska Soomaalida. Sidaan ognahay YouTube-ka waa website wax kasta aad ka helaysid. waana meesha labaad ay dadku macluumaadka ka raadiyaan. dabcan waa markii Google laga soo tago. xilligan aan joogno YouTube-ka wuxuu noqday meel ay dadku oo dhan waxay rabaan ku soo upload gareyn karaan. wuxuuna noqday meel ay dadku uga kaftoomi karaan TV-ga ama dhalada san u naqaanaba. waana meel loo soo shaqatay karo shilimaadna laga raacsan karo. anaga haddaan nahay dadka isticmaala YouTube-ka maalin kasta waxaan ku aragnaa YouTube-ka waxyaabo fara badan oo la yaab leh. sidoo kale waxaan aragnay dad badan oo YouTube-ka noloshoodii bedelay iyo dad iska caadi ah oo noqdeen xidigo YouTube-ka dartiis. sidaas darteed muuqaalkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa janaalada aan isleeyahay way ugu fiican yihiin marka YouTuberiska Soomaalida loo fiiriyo. anoo u fiirinayo janaalkaasi faa'iido ma u leeyahay bulshada mise uma lahan. dabcan janaalada reaction-ka bixiyo kuma arki doontaan listigan. daawasho wacan. number 1 waxaa siiyay ogaansho. kaalinta koowaad waxaa ku jira Cumar Inshaar. sidoo kale Cumar Inshaar waa wiil Soomaali oo ku nool dalka Qatar. waana ruuxa iskale janaalka ogaansho. janaalka ogaansho wuxuu ka mid yahay janaalada ugu fiican mujtamaca Soomaalida sidaan anigu isleeyahay. faa'iidana u leh bulshadeynta Soomaaliyeed. Cumar Inshaar janaalkiisa wuxuu ku soo gudbiyaa muuqaalo faa'iido u leh dhalinyarada sida muuqaalada dhiirigelinta, qisooyinka, dad guuleystay iyo arrimo badan oo aan halkan lagu soo koobi karin. janaalkaasi waxaa ku xiran in ka badan 289,000 oo qof ah. waa rajeynayaa inaad ka soo faa'iideysan doontaan janaalka ogaansho. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا 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 joogtiin YouTuberka labaad waa Arimaheena waa wiil Soomaali oo YouTuber vlogger ah. wuxuuna ku soo gudbiyaa janaalkiisa YouTube-ka muuqaalo xiiso leh sida vlog inuu ka soo duubo wadamada uu u safray iyo muuqaalo shactiro leh. mararka qaarna wuxuu soo geliyaa video clip. janaalkiisa waxaa ku xiran in ka badan 313,000 oo qof. waana mid ka mid ah YouTuberiska Soomaalida midkooda ugu caansan. YouTuberka saddexaad waa Ayub Yusuf Sakiin. haddii aad rabto inaad naftaada horumariso oo guul aad ka gaarto meel kasta aad doonayso waxaan kugula talinayaa inaad ku xirnaato janaalka Ayub Yusuf Sakiin. janaalkaasi waxaad ka helaysaa muuqaalo isugu jiro dhiirigelin, talooyin ku anfacaya iyo muuqaalo fara badan oo faa'iido leh. waxaana ku xiran in ka badan 167,000 oo qof. intaas ayaana kaga baxay. janaalka afaraad waa dadweynaha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوتيوب waa mid ka mid ah bogagga ay dadku aad ugu taxan yihiin. waa goob dad badan oo bila asxaabaha u suurta gelisay inay caalamka ka helaan asxaab badan oo waliba la garab taagan like iyo subscribe commentiyada dhiirigelinta ah. waa goob u suurta gelisay dad mawhibado cajiib ah lahaa inay dadka la wadaagaan. walaal Mukhtaar waa qofka aad markasta codkiisa ku maqasho janaalka dadweynaha. walaal Mukhtaar janaalkiisa wuxuu ku soo gudbiyaa muuqaalo isugu jiro la yaabka dunida, sheekooyin xiiso leh, dhacdooyin iyo arrimo kale oo faa'iido leh. janaalkaasi waxaa ku xiran in ka badan 289,000 oo qof. janaalka shanaad waa IM252. magaciisa ayaad ka garanaysaa inuu yahay furaha Soomaaliya ee dhanka technology-ga. janaalkaasi wuxuu haystaa in ka badan 130,000 oo subscriber ah iyo in ka badan 5 milyan oo views isku celcelis. waxaad ka helaysaa in ka badan 113 video oo isugu jiro sharaxaad ku saabsan sida ugu habboon aad u isticmaali karto moobilkaaga iyo kombiyuutarkaaga. waa mid ka mid ah janaalada ugu caansan dhanka technology-ga ee YouTube-ka Soomaalida. email ama telephone number. janaalka lixaad waa Farxiyo Tawakal. Farxiyo Tawakal waa gabar Soomaaliyeed oo YouTuberad ah oo ku sugan dalka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho. waa gabar YouTuberad ah oo baahiyaha gaarka qabto waxayna dhiirigelin u sameysaa dhammaan dadka Soomaaliyeed oo baahiyaha gaarka qaba. waana gabadhii ugu horeysay ee u soo istaagtay walaalaheeda Soomaaliyeed ee baahiyaha gaarka qabaan inay dhiirigelin u sameyso. janaalka toddobaad waa Badbaado Janaal.
badbaado janaal waxaa ku xiran in ka badan 242,000 oo qof. isku dardarka viewska wuxuu marayaa in ka badan 85 milyan, waxaana iskale sheekh Soomaali ah. hadda magaciisa ma hayo, laakiin qofkii yaqaano komitiga igu reebo. badbaado janaal waxaa kaloo yaalo in ka badan 2,100 oo video ah oo iskugu jiro muuqaalo diini ah, qisooyin, horumarinta nafta, dhanka diineed iyo dhanka dhaqaneedba, iyo muuqaalo fara badan oo faa'iido leh. waxaan isleeyahay janaalkaasi inaad ka wada faa'iideysan doontiin. janaalka 8aad waa Said Groups. Cabay Daahir waa wiil Soomaaliyeed, wuxuuna ku soo gudbiyaa janaalka Said Groups muuqaalo ku saabsan aasaaska internetka, kombiyuutarka iyo moobilada. janaalkaas waxaa kaloo ka heli kartaa sharaxaad iyo dib u eegista moobilada iyo qalabyada cusub. qiyaastii janaalkani waxaa ku xiran in ka badan 84,000 oo qof, wuxuuna istaahilaa in waqtiyada qaar lagu lumiyo. listigaas waxay ahaayeen 8 janaal aan isleeyahay way ugu fiican yihiin markii la fiiriyo YouTube-ka Soomaalida. dabcan aragtida waan ku kala duwanaan karnaa, taasina waa mid iska caadi ah. sidaasi awgeed adiga i daawanayo waxaan kaa rabaa inaad komitiga iigu reebto YouTuberka ama janaalka aad isleedahay wuu ugu fiican yahay YouTuberada. waa rajeynaa muuqaalkan inaad ka wada hesheen oo like-ta ay saari doontaan. waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.